haddaba saldhigan ayaa waxaa la sheegay in ay ku baxday lacag gaaraysa ilaa 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah. saldhigan waxa uu ka kooban yahay sida la sheegay qaybo kala duwan oo isugu jira tababarka ciidanka meelaha lagu tababaro, halka dabridka lagu sameeyo, iyo sidoo kale halka ay degayaan ugu yaraan markiiba 500 oo askari oo tababar loo sameynayo, adeegyadooda oo dhammaystiran haddii ay tahay biyaha ay u baahan yihiin iyo qalabka kale ee tababarka ay u baahan yihiin. waxaa sidoo kale saldhigan isna qayb ka noqon doona base ama qayb qaacida ah askari ama saldhig military oo ay ku sugnaan doonaan ciidamo Turkiya oo wata qalabka kala duwan ee ciidamada, sida haddii ay tahay diyaaradaha dagaalka, kuwa helicopterska, taangiyada iyo qalabka kala duwan ee ciidamada wadanka Turkiga ay isticmaalaan. istaraatiijiyad weyn ayaa la sheegay Turkigu inay ka leeyihiin saldhiga militariga, iyadoo dhawaana ay halkaasi booqan doonaan madax sare oo uu horkacayo Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha wadanka Turkiga, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socota gaashaanbuurta NATO. waa tahay aad baad u mahadsantihiin daawadayaal sida aad ula socoteen warbixintaasi. markan barnaamijka ayaan guda galayaa. waxaa marti ugu ah Axmed Liibaan oo ka mid ah aqoon-yahanka degan magaalada London. Axmed, saldhigan kolley laba arrimoodba waa yeelan karaa, khasaaro iyo faa'iido. marka haddii aan labada kala qaadno, marka ugu horeysa Soomaalidu waxay yiraahdaan shar ku tasho khayr wax ma ka dhibo. marka khatarta haddaan ku hormarno saldhigan uu la imaan karo maxaa ka mid ah? بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa dhamaan shaqaalaha Kalson TV. runtii sida hore u sheegtaba Turkida waxay ka furteen qaacida askariya, xarun military base aad u weyn wadanka Qatar 2015 oo ah dhinacaas golfka Carabta ama Khaliij al-Arabi dhulka loo yaqaano. kana waa kii labaad oo ay ka furanayaan adduunyada oo ah kii ugu weynaa oo kasii weyn kan ku yaala Qatar, maadaama Qatar ay tahay dowlad aad u yar. runtii qaacidadan askariga ah xarunta military oo laga furi doono Soomaaliya, dhibaatooyin badan ayaa Soomaaliya uga imaan karo. midda koowaad, sidaan wada ognahay Turkiga wuxuu qayb ka yahay sidaan ognahay NATO, oo NATO-na ay ka mid ah wadamada reer galbeedka iyo wadamada Mareykanka oo dhan ay hogaamiyaan. dhib kasta oo isku dhac kasta oo ka hor yimaada NATO iyo wadanka Ruushka, dhibaatadaas waxay keeni kartaa in Soomaaliya dhibaato uga timaado, gantaalada Ruushka kusoo gamin karo xeebta Soomaaliya. midda kale, istiraatiijiyadda meesha laga furay oo magaalada Muqdisho oo jasiira aysan waxsaas couple kilometers ee u jirto magaalada Muqdisho, taasna iyadana dhibaato weyn ayay ku tahay oo waxaa loo baahnaa in laga fiirsado istiraatiijiyadda meesha laga furi doono qaacidada askariga xarunta militariga ee la siiyey Turkiga. sidaan ka warqabnana wadamo fara badan hadda qaylo badan ay already ka bilaabeen, sida dowladda Masar. sidaas oo aan ka warqabno dowladda Masar in ay hadda xukunka uu la wareegay ninka la yiraahdo Cabdifataax Siisi, ninkaasoo aad iyo aad uga soo horjeeda xarakada Ikhwan Muslimiin ama Islamic Brotherhood, walaalaha muslimiinta sida loo yaqaan xarakada Ikhwan Muslimiin. Qatar sidoo kale xarakada Ikhwan Muslimiin ay gacan weyn siin jirtay. marka masaarida halkaas sida ognahayna Turkida waxay iyaga nafsadooda xiriir dhow la leeyihiin dowladda Ethiopia, kaas iyagoo ka saaciday daamka laga furi doono Ethiopia lacag fara badan ku bixiyeen iyaga iyo Qatar. marka xaggaas darteed masaarida walwal weyn ay ka muujinaysaa. dowladda Ruushka sidoo kale walwal, dowladaha dariska oo Soomaaliya dariska laana kulligood walwal ay ka muujinayaan. marka lagama fiirsanin qaacidadaas la siiyey xagga istiraatiijiyad ahaan kumana fiicneen. dhibaatooyin fara badan uga imaan kara Soomaaliya. hubka meesha la keenayo oo ah hub aad casri ah, cruise missile, plastic missile, gantaalada lidadooda dheerayso oo diyaaradaha. marka dhibaatooyin fara badan ayaa ummadda Soomaaliya uga imaan karto oo lagama fiirsanin. baarlamaanka looma gudbinin sidaan ka warqabno oo waxba kama oga baarlamaanka Soomaaliya. heshiiskaana mid hadda bilowday ma ahan. dowladda Turkiga sida ognahay 2011 abaartii tan ka horeysay 6 sano ka hor, dowladda Turkiga waxay ahayd ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Erdogan oo hadda madaxweyne ah, ninka ugu horeeyay Soomaaliya yimaada sidaan ka warqabno 2011 markuu yimid oo indhaha caalamka dhan Soomaaliya uu ku soo jeediyay.
arinta halka uu imaanayo waa hab istaraatiiji ah, dhaqaale ahaan ah, saaxiibtinimo ah, dhinac walba ah. markii loo fiiriyo Soomaaliya oo meel aad ugu dhow baabilmandab ah uu ka kontrooli karo dhaqaaqa xeebaha caalamka oo dhan iyo ay tahay meesha ugu weyn adduunka ay soo maraan oo shidaalka u socdo Far Asia oo dhan meesha uu mara ay tahay. marka Iran ay ka degan tahay sida ognahay oo hadda ka hor aan ku soo qaadanay barnaamijyo kale xaggaas iyo Eritrea. marka Suuriya sida ognahay iyo Qatarna ay ka qayb qaateen ay ka ahaayeen dagaalkii ka dhanta ahay Xaafid al-Asad Bashar al-Asad aan ka wada madaxweynaha Suuriya ay faragelin weyn ay ku sameeyeen burbur badan ay ka geysteen wadankaas Suuriya oo ilaa hadartan ciidamo fara badan ay Turkiga ka dhex joogaan halkaas. marka dhaqdhaqaaqyo fara badan awadeed dhibaatooyin badan ayaa ka imaan kara. midda kale marka dhinaca kale u fiirino wadanka Mareykanka oo bilaabay inuu ka sii baxo wadamada khaliijka Qatar iyo Soomaaliya iyo wadamo fara badan waxay isku dayayaan inay sameystaan xiriir saaxiibtinimo oo wadamo fara badan sida Turkiga oo kale. marka heshiisyadaas oo dhan ayaa markii la isku dardaro ayaa Turkiga ay Soomaaliya u doorteen. marka lagamana fiirsanaan leeyahay laakiin faa'iidada khasaare waa ka imaan kartaa laakiin khasaaraheeda hadda ka hadlayna waa tahay faa'iidada waa u imaan doonaa. khasaaraha dad badan oo Soomaaliya way arkaan in khatar ay imaan karto oo xataa uu sababi karo isku dhac ciidamada xeebaha Soomaaliya ku sugan iyo saldhigan militariga. haddii sida hadda muuqata Yurub iyo iskuma fiicna iyo Turkiga haddii cilaaqadooda ay sii xumaato oo kale Yurubna ay saldhigyo ku leedahay xeebaha Soomaaliya ku dhow sida Djibouti oo kale khatarta in Soomaaliya ay aad u saameyn karto. ma aragta adiga taas waa mid aan ku bilaabay khatarteeda lagama fiirsan xataa meesha laga siiyay waa caasimadda Soomaaliya oo dhaqaalihii Soomaaliya oo dhan uu yeelay hantidii Soomaaliyeed siyaasadda Soomaaliya oo dhan matalaysay magaalada madaxda Soomaaliya. marka lagama fiirsan saldhig habka laga siiyay saldhig in dawlad la siiyo ma xumo sida marar badan sheegay laakiin mushkiladda Soomaaliya hadda ka jirta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe federaalka waxay u egyihiin dad Soomaaliya forsal ah Soomaaliya dad beecinayo suuqa geynaayo qandaraas ku bixinayo dawladii haddana soo dhaafay iyo kuwa hadda joogo ee midda cusub hadartan ilaa 40 casho jirta kulli wax istiraatiiji ah lama imaanin kumana socdaan. marka hadda meeshan qaacidadan cusub oo hadda la furay inta sano ay furnaan doonto hadda kama warqabno. markaan fiirino dawladda Qatar heshiis ayay la sameysatay dawladda Turkiga markay ka furanaysay saldhigga militariga Qatar oo saldhigga ugu horeeyay ee adduunka caalamka ay ka furato Qatar kan hadda Soomaaliya ka horeeyay. waxaa lagu heshiiyey waxyaabo fara badan in ay isdhaafsadaan labada military ee labada ciidan inay dowlatus wada sameyn karaan inay tababar sameynayaan la hal cadow inay leeyihiin saan sheegay labadooda maadaama xarakada muslimiin ay wada taageeraan in Iran ay ka difaacdo dhinacyo fara badan. xataa nin Ingiriis oo la yiraahdo Professor John McRickley oo wax ka dhiga King's College sidoo kalena wax ka dhiga oo macadka daraasaadka istiraatiijiga ee Qatar ee difaaca wuxuu sheegay in xaruntan Qatar laga furay intan Soomaaliya Turkiga ay doonayso inay mar labaad riyadeedii hore Turkish Empire Imperatoriyal Uthmaniya fikradaas inuu wado ninkan Erdogan la yiraahdo sida marar badan lagu celceliyay wayna u eg tahay oo fikradaas ayuu rabaa inuu dib u soo nooleeyo. saas aawadeed ayuu wuxuu rabaa inuu caalamka oo dhan ka furto xerooyin military oo cusub. sida aan ka warqabno Turkiga waxay sameeyaan hub fara badan hubkaas nafsadeedu waxay u baahan yihiin inay u marketing u sameeyaan xeradan ay ka furayaan Soomaaliya marketing ay wax ugu sameynayaan xataa tababaro ay waxay ka siin doonaan Soomaaliya kaliya ma ahan sida ay damacsan yihiin oo joornaalada Turkiga ka soo baxa lagu wada qoray in ay xataa tababaro u sameeyaan wadamo fara badan oo Afrika ka tirsan sida Senegal oo hadartan ku xigi doonto ciidanka Soomaaliya markii la tababaro wadanka Djibouti nafsadiisa dawlado badan oo dariska ah sida Burundi iyo Rwanda kulligood in Soomaaliya tababar loo keeni doono mar labaad tababar lagu siin doono in ay ka sameyn doonto scholarship ki loo geyn jiray ciidamada ajaanibta ah wadanka Turkiga
in soomaaliya lagu tababari doono marka dhaqaale fara badan hadda sanadkana soo dhaafay waxaa lagu qiyaasaa 75 milyan oo dollar ka badan inuu ahaa tabaadul tijaari isdhaafsiga ganacsiga Soomaaliya iyo Turkiga marka Turkiga wuxuu rabaa inuu waxyaabo badan sameeyo marka dhibaatooyinkaas fara badan waa nooga imaan karaan aan sheegay waa tahay marka saldhigan asaga waxaad hore u tilmaantay in baarlamaanadii Soomaaliya aysan ba ka hadlin dawladihii soo marayna aan la geynin halkee buu ka soo bilowday wada hadalkan in saldhiga Turkiga la siiyo ma markii ugu horeysay Erdogan uu yimid Soomaaliya uu gargaarka u fidiyay shacabka Soomaaliyeed oo abaarihii 2011 sheekadu halkaa may ka dhalatay ma noo sheegi kartaa runtii imaanshada u yimid heshiisyo badan la galay oo dawladda Sheekh Shariif uu hogaaminayay dawladda ku meel gaarka ahayd heshiisyada la galay sida hadda ku sheegaba dawladaha Soomaaliya heshiisyada ay galaan baarlamaanka umada ictiraafsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma aaminsano baarlamaan waxa la yiraahdo Soomaaliya inuu ka jiro ma aaminsano dawladda goboleed oo federaal inay wadanka ka jiraan ma aaminsano shacab Soomaaliyeed waxa la yiraahdo inuu jiro umada kale ma watashadaan sheekadu waxay ku xiran tahay aniga wax walba madax meel ka sareeyo la taabto ma leh oo kale uu aaminsan yahay ninka Soomaaliya madaxweynaha ka kan hadda joogo iyo kuwa hore iyo kuwa soo socda xataa anigoo shakhsiyan qof uu tilmaameen waa qalad weyn ee siyaasiyiinta Soomaaliya ku jiraan especially ninka president of Soomaaliya sheeganaya mar walba taariikhda Soomaaliya marka fiirino laga soo bilaabo dawladda Cabdullaahi Yuusuf oo lagu sameeyay imbikati ilaa tan hadda joogto maanta oo xamar tii ka horeysay tanba xamar lagu dhaariyay xamarna lagu doortay marka Sheekh Shariif waxyaabo badan uu saxiixay asaga kaliya Ilaahay ayaa kama warqabno laakiin run ahaantii dabagalka heshiiska rasmiga ah xerada military wuxuu bilaawday dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hadda xilka ka degay ayuu bilaawday asaga ayaa saxiixay in la siiyo halkan laakiin saxiixa koowaad waxa iska lahaa Sheekh Shariif saxiixa labaadna waxa iska lahaa Xasan Sheekh Maxamuud sida ognahayna madaxweyne Farmaajo asagana hadartaan garab istaag weyn ayuu muujiyay markii Yurub iyo isku dhaceen iyo Turkiga marka asagana waa si barakeeyay leeyahay oo sababtoo asagana kama soo horjeedo oo khadkii hore ayuu ku socdaa oo kama leexanin marka kullu isla wada ogyihiin marka baarlamaanka Soomaaliya meeshuu ku mashquulayo wasiir ayaa ansixinayna ma ansixinayno waxyaabo badan oo istiraatiiji ah oo loo baahnaa dawladda inay kala xisaabtamaan especially madaxweynaha Soomaaliya mar walba soo maro ayay meesha ku tuuraan sanadka ugu dambeeya 4 bilood ugu dambeeyso ayay waxay bilaabaan madaxweynaha heshiis hebel u galay iyo meel hebel xerada military hadda waxaan sii raacsiisanayaa quality control company oo sameeyo oo Turkiga waxa jira ku dhaxyaala dekada dhexdeeda heshiiskii waa ka dhacay sidaan ka warqabo waxyaabaha hadda dawladda aan ku eedeynayna waa kuwa hore iska dhaaf oo waadix ah aan qarsooneen oo qof walba og yahay madaxweynaha ka warqabo madaxtooyada og tahay markii hadda kontraada ka dhacday bishii hadda la soo dhaaftay lama sugin intuu dawlad laga soo dhisaayo lama dhihin wasaarad hebel u sii dhiibo sababta wasaarada ayaa dhisnay wasiirada jooga xilka wareejinay si toos ah warqadda waxay ugu soo gudubtay xafiiska madaxweynaha toos u saxiixay inay 3 bilood sii joogaan inta dawladda laga soo dhisaayo waxay ka mid tahay qaladaadka loo baahan yahay baarlamaanka hadda joogo inuu dawladda transparency oo toos ah oo la sameeyo oo yiraahdo maxaa qaldan shafaafiyadu wax muuqdo natusa taas ayaa meesha ka maqan baarlamaanka wuxuu ogyahay baarlamaan fadhiisi dawladana way ka mas'uul tahay sababtoo hadda wasiiradii iyo waxa isdhex galay iyo xildhibaanadii meelaha marka qaladaadka Soomaaliya laga soo galayo oo xerooyinkan militariga iyo waxyaabahan ay noogu imaanayaan meeshaas ay ka takan waa maadsan tahay qaybtii hore waxaanu kaga hadlaynay khasaaraha ka dhalan kara saldhiga militariga Turkiga uu ku leeyahay Muqdisho waliba hadda ciidan iyo hub iyo qalab ay keeneen qayb kamida qayb kalena ay soo wadaan faa'iidada marka Soomaaliya ugu jirta saldhigaas maxay noqon doontaa saldhiga faa'iido la'aan ma naqanayo sababtoo sida aan wada ognahay wadamada dariska iyo wadamada reer galbeedka oo dhan international community-gu ma ogola inay dhismaan ciidamo Soomaaliyeed oo xoog leh marka dawladda Turkiga waxa looga faa'iideysan karaa markii khasaaraha aan fiirino faa'iidada hadda ku soo naqaleena waxa looga faa'iideysan karaa ciidan Soomaaliyeed oo la dhiso oo hanta xuduudaha Soomaaliya oo dhan oo ku filnaadana amniga magaalada Muqdisho oo dhibaatada meesha ugu badan ay ka taagan tahay iyo koonfurta Soomaaliya oo dhan kadibna maamul goboleedyada oo dhan loo dhiso federaal
ciidan federaal oo wada meel walba gaari karo oo xuduudada soomaaliya amnigeeda waardiyeeyo si hadda faragelin aanu lagugu samaynin marka turkiga taas waa looga faa'iidaysan karaa waxayna hadeertaan heshiiska la galeen heshiis qarsoodi ah aanaysan la gelin oo mid buuqda ah UNT la galeen si ciidankan loo tababaro ciidanka ay tababarayaan hadda magaca ay ku tilmaameen hadduu hirgalo wax qiimaa ma yeelanayso laakiin soomaalida hadda waxaa looga baahan yahay inay magacaas bedelaan magaca hadda ay la galeen UNT oo hadda ay sheegeen ee lacagta uga qaadatay turkiga asxaan badan kuma sameynayso soomaalida waxyaabaha ka baqan taasi ka mid tahay meesha iyada nafsadeeda manfacadeeda faa'iidadeeda ka raadsanaysaa UNT waxay ka soo dhamaysteen heshiis ah in ay tababaraan ciidamada la dagaalanka argixisada fiiri 10,000 ah marka taas nafsadeeda xoogaa khad markii la hoos dhigo waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo 10,000 argixisada dagaalan anaga uma baahnin waxa u baahnaa 10,000 oo ciidan ah argixisada wax la yiraahdo wax jira maahan oo mafhuumkaas la qeexay nin walba suuraba u macnaystaa laakiin haddii adiga ciidankaaga lagu tababaro aday tahay inaad ka faa'iidaysatid Soomaaliya baya laakiin markii lagu yiraahdo argixisada dagaalan xoogaa kalimadii wili waxa la daba socdaa Bush oo adiga anaga la jirtaa macadow anagu tahay oo Soomaaliya ilaa markii waxay ku jirtaa inay tahay qayb ka tahay dagaalka la dagaalanka argixisada oo istiraatiijiyadii iyo horumarkii iyo dhaqaalihii iyo investmentkii wixii lagu sameeyay dhan ay meesha ka maqan tahay siyaasadii Mareykanka ayuu Turkiga wali daba jooga marka taayaa ka weecin karo baarlamaanka Soomaaliya ka weecin karo madaxweynaha kama weecin karo sababta madaxweynaha wuxuu doono hoos ka saxiixdaasaan sheegay madaxweynaha Soomaaliya marka baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada hadii la ansixiyo waxa looga baahan yahay labadooda inay dabagal ku sameeyaan marka Turkiga faa'iidooyin badan ayaa laga heli karaa halkii mar waxaan tababaranahay 500 oo ciidan oo Soomaali ah 500 waxaa loo baahan yahay in laga keeno maamul goboleedyada hab siman loogu qaybiyo ciidankaas markay maamul goboleedyada ku noqdaan inaysan naqan ciidan ka amar qaata maamul goboleedyada ay noqdaan kuwa toos uga amar qaata wasiirka gaashaandhigga iyo gacan saar hoose la yeelanayo maamul goboleedka ay joogaan xadkiisa iyo Soomaaliyeed oo meel lagu xareeyay laga dhigo ciidan Soomaaliyeed kafaala qaad dawladana kafaala qaada dhaqaalahooda sida ognahay hadartaan maalintii dawladda Sheekh Shariif ay timid laacada qiyaastii waxa la tababaray 150 kun oo ciidan oo Soomaaliya san ka warqabno oo wasaaradda gaashaandhigga liiskeeda ku jira ilaa hadartaan magaalada Muqdisho qarxay ayaa ka dhacayo faragelinta shisheeye way socotaa marka ciidamada in la iska tababarana qiimo ma laha waxa loo baahan yahay maxaa nagu filan istiraatiijiyad in la dejiyo oo inta ciidan nagu filan laga codsado dawladda Turkiga xeradan militariga ee meesha ka sameeyaan waa laga rabi karaa maadaama ay magaalada Muqdisho ku dhowdahay Soomaaliya waa wadan aad u balaaran meel kale ayaa loo sii rari karaa intii aan xeradan waxa laga dhigi karaa xelo military oo ciidanka Soomaaliyeed uu leeyahay oo laga difaaco wadanka Soomaaliya oo dhan ayaa laga dhigan karaa iyagana waxa loo rari karaa qaacido kale oo xoogaa ka fog magaalada si hadduu dhib dhaco magaalada dhibaatada ay uga fogaato maadaama weli waxaan ku jirnaa faa'iidada Soomaaliya muddo badan faragelin ayaa lagu hayay hadday tahay mid siyaasadeed iyo mid military oo inta badan ka imaanaysay dawladaha dariska dhibaato badan ayay dawladihii Soomaaliya arinta ka muujin jireen waxaana Soomaaliya loo arkayay inay tabar daran tahay dawlad wanaagsan aysan ahayn marka dawladda Soomaaliya saldhigan ma uga faa'iideysan kartaa maadaama ciidamo xoog leh Turkiga ay imaanayaan oo qalab wata sida hadda aan daawanaynay qalabka noocaasa qaybo kamida la geyn doono saldhigaasi oo saraakiil waaweyn oo Turkiga ay tagi doonaan ma uga faa'iideysan karaan inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca badda oo kalluunkii Soomaaliya la iska qaato bariga oo dawladaha dariska waxay rabaan ay ka sameeyaan ta soo galaan gudaha arinta iskaashi ma kala yeelan kartaa waa laga yeelan karaa laakiin waxa loo baahan yahay wax dabagal sameeyo mushkiladda Soomaaliya dabagal ma lihin dawlad kasta oo timaada tii ku horeysay wax ay sameeysa kama warqabto tan hadda joogto tan soo socoto wixii tan hadda sameeysa kama warqabto oo waxba feelal la suma dhiibo sababta soo nin walba wuxuu lunsaday ka cabsanaa in laga daba tago marka taal hadda soo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo sheegay waan baabi'inaynaa oo yiri haduu ka dhabeeyo oo musuqmaasuqa oo hawsha sida tahay loo daba galo baarlamaankan oo la xisaabtan ku sameeyo madaxweynaha waxyaabaha uu
badanaa hawshiisa uu asaga iskugu soo koobo waxaa ka mid ah markuu yahay wax la xisaabtamayo baarlamaanku wuxuu bilaabaa asagana in uu dowladdii uu la xisaabtaminaya asagana madaxweynihi uu qaladaad badan sameeya qaladaadka waxaa ka mas-uul ah inuu madaxweynaha qalad ku dhaco baarlamaankii controli lahaa marka dowladda turkiga markaan usoo noqono soomaaliya badeeda aaday u weyn tahay waxaa laga baxsadaa lacag aad iyo aad u fara badan dowladda faransiiska keliya ayaa waxaa lagu qiyaasay sanadkii inay ka xaddo soomaaliya 100 milyan oo dollar marka xisaab 100 milyan kalluunka keliya badda soomaaliya ee kheyraadka ay kala soo baxdo in qashin lagu shubo marka dowladda turkiga waxyaabo badan istiraatiijiyad badan ayaa laga faa'iidi karaa in xeebaha soomaaliya ay waardiyeyso ay usoo dirto qaacidada maraakiib aad iyo aad u dheereeya oo soo qabta sidoo kale waxaa looga faa'iideysan karaa cirka ilaa hadda waa ognahay sidii dowladda dhexe u dhacday hawada soomaaliya lagama xukumo nairobi laga xukumaa ilaa hadda nairobi iyo dowladaha dariska waxay wadaan khalaaqil in soomaaliya loo soo celin waaya hawadii soomaaliya marka dowladda turkiga waxay naga saacidi kartaa in ay satalaadyo caalami ah iyo hawadii dhan ay tiraahdo anaa ka mas-uula anaa tababaraya in UN-tana la kaashato iyo wadamada carabta iyo caalamka islaamka oo si degdeg ah 2 bilood 3 bilood gudahooda kuma qaadanayso dowladda turkiga hadday damacdo inay soo celiso hawada soomaaliya waxyaabahaas oo dhan ayaa looga faa'iideysan karaa istiraatiijiyadaas dowladda turkiga soo dhaweysashada la soo dhaweysanayo dowladda turkiga markii kale ma ahan wax hadda ay bilaabayaan xiriirka soomaaliya iyo turkiga 350 sano ka hor ayaa xiriir fiican ay ku lahaayeen soomaaliya kii ayay waxay rabaan inay sii xoojiyaan oo ay horumar kusii sameeyaan dhaqaalo fara badan turkiga waxaa ku yaala warshado yaryar oo ganacsi waxaa laga codsan karaa dowladda turkiga si shaqaalaha soomaaliya ay shaqo u helaan oo shaqo la-aanta baahsan soomaaliya ka jirta warshadahaas qaar ka tirsan ka mid ah in soomaaliya loo soo raro oo maamul goboleedyada caasimadda meel walba warshad cusub laga sameeyo